kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka Fagaare Production xilligan idiin hayo waxaana kamida qaraxyo iskugu jira miina iyo qof naftiisa haliga oo ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo shirkii Afisyooni oo mar kale baaqday xilli maanta lagu waday inuu dib u furmo Puntland oo hub iyo gaadiid dagaal ku wareejinaysa midowga musharaxiinta iyadoo aysan wanaagsanayn xaaladda guud ee dalka madaxweyne Farmaajo oo aqbalay in amniga doorashada lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya afayeenka musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo fariin u diray madaxweyne Farmaajo intaasi waa qaar kamid ah wararka xilligan aan idiin hayno imikana u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan intaynu gudu galin wararkeena daawadaha haddaad nagu cusub tahay subscribe channelka si aad u heshid wararka halkan aan soo galino haddaad horey noola joogtayna share garee muuqaalka oo gaarsii saaxiibada kula midka waxaan ku bilaabayaa wararkeena magaalada Baydhabo gobolka Baay waxaa ka dhacay qarax miidaamin ah kaas oo sababay khasaare dhimasho dhaawac leh qaraxaas waxaa fuliyay qof naftii haliga ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa wuxuuna ka dhacay maqaayad lagu shaaho oo ku taala xaafadda Bardaale ee magaalada Baydhabo qoraal ka soo baxay taliska booliiska Soomaaliya ayaa lagu yiri maanta 5 saac iyo 15 daqiiqo ayaa qof naftii haliga ah isku qarxiyay maqaayad shaaha lagu cabo oo lagu magacaabo Suways Cafeteria oo ka soo horjeeda Salaajeri Tower xaafadda Bardaale ee magaalada Baydhabo qarax ayaa sababay dhimashada 2 qof iyo dhaawac 5 kale wararka ugu dambeeyay ka helayno khasaaraha ka dhashay qaraxaas waxay sheegayaan in ugu yaraan 3 qof ay ku geeriyoodeen halka dhaawacyadu ay ku dhow yihiin 10 sidoo kale wararku waxay intaas ku darayaan in maqaayada uu qaraxaasi ka dhacay ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin uu kamid yahay gudoomiyaha gobolka Baay waxaana la xaqiijiyay inuu kamid yahay dadka ka badbaaday dhinaca kale faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax maanta ciidamo ka tirsan kuwa dawladda lagu leeyahay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hiliwa ee gobolka Banaadir qaraxa oo ahaa nooca miinada ee dhulka lagu aaso ayaa si gaar ah uga dhacay halka loo yaqaan biyadaga degmada Hiliwa sida inoo xaqiijiyeen ila deegaanka wararka ayaa sheegay in qarax uu qabsaday gaari nooca raaxada ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska waxaana ka dhashay khasaare dhimasho dhaawac leh inta la xaqiijiyay ugu yaraan 2 qof oo shacab ah oo wadada marayay ayaa ku dhintay qaraxaas iyadoo dhaawac culus soo gaaray wadaha gaariga qaraxa la beegsaday sidoo kale waxa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya kuwaas oo baaritaano kooban ka sameeyay xaafado ka tirsan degmada Hiliwa ee gobolka Banaadir mudooyinka la soo dhaafay ayaa waxa Muqdisho ka dhacay falal lid ku ah amniga sida dilal qorsheysan qaraxyo iyo dhac xilliyada habeenkii loo geysto shacabka waxaa maanta la filayay in madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay dib ugu laabtaan teendhada Afisyooni si uu uga furmo shir ay ku balansanaayeen madaxda balse ilo ku dhow ayaa sheegay in shirkaasi uu baaqday dawladda federaalka ayaa dhawaan sheegtay in wadahadaladii socday ay burbureen halka labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay warkaasi ka soo horjeesteen warka ay dawladda faafisay waxaana xigay in beesha caalamku ay ku baaqday in dib loogu laabto teendhada si wadahadaladu ay u sii socdaan maanta sabti ahayd ayaa la filayay in madaxda ay dib ugu laabtaan teendhada Afisyooni isla markaana ay sii wadaan wadahadalada dhexdooda ah kana arrinsadaan sidii la isugu imaan lahaa shirweyne looga heshiinayo hanaanka doorashooyinka xoga aan helayna ayaa sheegaya in shirka maanta ay diideen inay ka qayb galaan madaxda Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo Siciid Dani labadan hogaamiye ayaa cududaar u gudbiyay beesha caalamka ee ra'iisul wasaare Roble waxayna ku wargeliyeen inaanay ka qayb gali karin shirka maanta la filayo inuu ka furmo teendhada Afisyooni si kastaba wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa Arbacada la soo dhaafay ka dhawaajiyay in shirka burburay isla markaana ay labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland yihiin kuwa jid iyo jihadiida dhanka kale Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe ayaa iyaguna sheegay inaysan ogeyn meel uu ku baaqday shirka isla markaana ay diyaar u yihiin waqti walba inay dib ugu laabtaan teendhada Afisyooni lama oga shirka maanta sabtiya baaqday waqtiga uu dib u furmi doono dawladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in amniga doorashooyinka dalka ka dhacaya lagu wareejinayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble sida lagu sheegay qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda u qortay golaha ammaanka qoraalkan ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha uu hogaamin doono guddiga ka shaqeynaya doorashooyinka ka dhacaya Soomaaliya sababta amniga loo hoosgeeyay ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu sheegay si loo xaliyo cabashada dhanka ammaanka ee ka taagan doorashada dalka cabashada ammaanka doorashada si loo xaliyo dawladdu waxay xaqiijinaysaa in guddiga amniga doorashada qaranka uu hoggaankeeda qaban doono ra'iisul wasaaraha
kaas oo la wareegi doono xalka arrimaha amniga ayaa lagu yiri qoraalka dowladda. arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli musharaxiinta mucaaradka maamulada Puntland iyo Jubbaland ay horey u shaaciyeen in amniga doorashooyinka dalka aan lagu aamini karin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. si kastaba doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxaa hareeyay isjiid u dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar iyadoo lagu kala tagay wadahadaladii u dambeeyay ka socday teendhada Afisyooni magaalada Muqdisho. maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa qorsheynaya in hub iyo gaadiid dagaal ay u soo dhiibaan mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya si ay ugu dagaalamaan. hubkan oo dhawaan ay Puntland yeelatay waxaa magaalada Gaalkacyo ka iibiyay wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal. hubkan ayaan la ogeyn halka la soo marin doono bad iyo cir intaba iyadoo dowladda federaalku ay arrintan aad uga warqabto. ujeedka madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in magaalada Muqdisho ay dagaal sokeeye geliso isla markaana ay sidaas ku burburto iyada oo uu damacsan yahay Dani inuu madaxweyne Farmaajo ka takhaluso. arrintan ayaa waxa loo xilsaaray guddi ka shaqeeya hubka ay doonayso madaxtooyada Puntland inay u gacan galiso mucaaradka Soomaaliya kuwa oo kala ah Xasan Cabdullaahi Dani oo la dhashay madaxweyne Dani, Cabdikariin Xuseen Guure Shaacuur oo qaabilsanaha Aaranjaan ee gobolka Mudug baa la yiri, Cali Siciid Cabduqaadir Jaamac Siciid Faadi maareeyaha dekedda Garacad. shakhsiyaadkan kulligood waa kooxda Jaamac Cali Jaamac ee xiriirka dhow la leh dowladii Carta. xukuumadda Dani waxay si gaar ah ugu xiran tahay kooxda mucaaradka ka midka ah oo waagaas xiriirkoodu soo bilowday. sidoo kale madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa xiriir qoto dheer waxa uu la leeyahay kooxda Damul Jadiid oo ay iska kaashadaan dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha hubka oo kale. madaxweynaha Puntland ayaa noqday jid iyo jihadiid isagoo hortaagan inuu dalka doorasho galo, taa beddelkeedna ka shaqeynaya in Muqdisho ay ka bilowdaan kacdoon dadweyne taasoo kursiga looga tuurayo madaxweyne Farmaajo. afayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka war qoraal soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan fashilka ku yimid wadahadalada doorashada ee ka socday xerada Afisyooni magaalada Muqdisho. Geelle ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay dib ugu laabato miiska wadahadalka si xal waara looga gaaro khilaafka hareeyay doorashooyinka 2021. sidoo kale wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in madaxweynaha oo laga doonayo inuu xalka raadiyo uu ka kaco fadhiga halkii laga rabay inuu wanaajiyo hogaamintiisa. dowladda iyadaa gogasha naga laabatay, waxaana rabnaa inay nala hadlaan oo ay nala heshiiyaan madaxda xafiiska joogta. dowladda xal baa laga rabaa, balse ma ahan inay dhahdo fadhiga waa lagu kala tegay. madaxweynuhuna ma ahan in fadhiga uu ka kaco, balse waa inuu raadiyaa xalka wanaagsan, waa in hogaanka wax wanaajiya, ayuu yiri Daahir Maxamuud Geelle. musharax madaxweyne Daahir Geelle oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay dantu ku jirto inay sii socdaan wadahadalada si xal looga gaaro doorashooyinka dalka. haddii wadahadal culays ku yimaado dalkana uu yahay mid dhibaato ka taagan tahay, xalku waa in laysugu laabto, waana arrin dabiici ah in laysqabto, balse muhiimadda ayaa ah in xal lagu dhammeeyo waxyaabaha sababay kala tagga si looga fogaado kala tag horleh, ayuu mar kale yiri afayeenka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu kala kacay shirkii ka socday teendhada Afisyooni ee looga arrinsanayay hanaanka doorashooyinka dalka ee sanadka 2021. taliyaha ciidanka booliiska magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Maxamed Maxamuud Rooble ayaa soo saaray amaro lagu soo rogay gaadiidka ka baxaya iyo kan soo galay magaalada Beledweyne. amarada ka soo baxay taliska booliiska magaalada Beledweyne ayaa ka kooban 3 qodob oo kala ah. dhammaan gaadiidka xamuulka qaada waxaa la amrayaa inaysan soo gali karin magaalada Beledweyne ka hor 4 ama 10 galabnimo. in wax gaadiida aan la hor dhigi karin ama baakin loo ogolayn cisbitaalka weyn ee magaalada hortiisa, iyo sidoo kale inta u dhaxaysa bacadlaha ragga ilaa siliga laga galo xarunta Lamagalaay. lama ogola gaadiid ay ku dhagan yihiin muraayadaha madow ee bensalka loo yaqaano, kaas oo aan haysan warqadda ogolaanshaha ee hay'adaha ammaanka. bulshada ku nool magaalada Beledweyne iyo gaadiidleyda ayaa qoraalkan looga dalbaday inay dhaqan geliyaan amaradan, iyadoo ciddii u hoggaansami weysana amaradan laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan sida ku cad qoraalka. amarka ka soo baxay taliska booliiska magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay foodo inagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan, xilligaas oo laga boqo in kooxaha ka soo horjeeda dowladda ay weeraro geystaan. guud ahaan warkeed ka daawanayseen Fagaar Production waa naga intaan warkaan warxiga ku kulmayno, sidaas nabadgelyo.